رمضان شربت القلوب محبة، شهر كريم عاشقوه كرام، وتعود ضيفا قد نزلت مبجلا بقلوبنا لما يمر العام. soonku wuxuu leeyahay shuruud arkaan iyo axkaam u gaar ah, waxaana warbixinadan ku soo gudbin doonaa qaybo ka mid ah axkaamta soomka, innagoo hadba dul istaag ku samayn doono masaa'il gaar ah iyo xukunkooda sida ay bulshada uga faa'iidaysato. mas'alada aan maanta diiradda saari doono waa soonka dadka loo yaqaano ahlul acdaarka, gaar ahaan qofka xanuunsanaya iyo sida laga yeelayo. dadka xanuunsanaya ee aan awoodda u lahayn inay soomaan waxaa loo kala qaadaa laba nuuc. kow, qof xanuunsanaya inta lagu guda jiro bisha ramadaan aana awoodin inuu soomo, balse la rajaynayo inay soo hagaagto xaaladiisa caafimaad. haddaba maxaa laga doonayaa qofkaas? waa kan sheekh cazaam abuuyaxya xafidahullah oo inoo faahfaahinaya. qofka noocaasa waxaa u bannaan intaa uu xanuunsanayo inuu afuro ayaa u bannaan, laakiin waxaa waajib ku noqonaysa markuu caafimaado inuu soo qadeeyo uu soo qalleeyo intii ka tagtay iyo intii maalimood ee uu afuray, siduu allahba tabaaraka wa tacaala uu leeyahay: faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatun min ayaamin ukhar. qofkii idinkaydin ka mida ee xanuunsanaya ama safar ku taagan waxaa ku waajibay maalimaha uu afuray intii u dhiganta oo maalimo damba. waxaa la mida markaa qofkan xanuunsanaya ee hadda xanuunkiisa la hubo, qof kale oo aan xanuunsanahaynin laakiin dhakhaatiirtu ay yidhaahdeen qofka hadduu soomo xanuun baa ku dhalanaya ay yidhaahdeen, ama xanuunkan hadda aan ka daaweynayno ee ka nasilmay ee waxoogaa caafimaada uu dareemayo hadduu soomo xanuunkiibaa ku soo laabanaya. marka waxaa laga maarmaana in muddo ah inaanu soomin si xanuunkaasi uu uga caafimaado. qofkaasi wuxuu la mid noqonayaa qofkii hadda xanuunku ku taagnaa ayuu la mid noqonayaa. amaba qof baa jira maalan isagu hadda wuu caafimaad qabaa, laakiin waxaa la leeyahay haddii uu soomo xanuun buu qaadayaa, gaajada uma adkaysan kara maalan, oo gaajo hadduu gaajoodo xanuun baa ku dilaacaya. qofkaasoo kale isagana wuu afuri karaa, hadhowna hadduu caafimaado wuu soo qallaynaya. waxay miithaal u soo qaataa maalan ninbaa xanuunsanaya, xanuunka hayana waxa weeyaan waa shahwatuljimaac. dhakhaatiirtu waxay isku raaceen ninka noocaasa haddaan si degdega islaan loogu geynin in xiniyo ay dildallaaci doonaan ayaa la ysku raacay. qofka noocaasa waxaa u bannaan inuu afuro. waxaa la mida maalan gabarh yar oo laga yaabo 10 sano inay jirto ama 9 sano inay jirto ama 11 sano inay jirto ayay caadada ku dhacaysa, waa ay qaan gaadhaysaa. lafaheeda markii la fiiriyana awood qaadi karta maaha inay soonto. qofkaa yar ee qaan gaadhay ee noocaasa ee soonkan aan u adkaysan karaa maxaa u bannaan? gabadhaa yar inay afurto ayaa u bannaan. waxaa loo qorayaa intii maalimood ay afurtay, markay xoogaysato ayay soo qallaynaysaa. nooca labaad ee ka mid ah qofka xanuunsanaya waa qofka aan la rajaynin inuu ka caafimaado cudurka uu la jiifo, sida gabowga iyo waayeelinimada oo ah marxalad aan rajo laga qabin in qofka uu ka gudbo. ruuxaas ayaan isna qaadanaya xukun ka duwan midkii aan horay u soo sheegnay, sida uu sharaxayo sheekh cazaam abuuyaxya. nooca labaad ee xanuunka waa xanuun qofka ku dhacay oo daa'ima inuu zuulana aan la rajaynahaynin. maalan waa qof gaboobay weeyaan, gabowgu waa cudur weeye, inuu dib u soo kabto qofkii la fili maayo. ama qofka waxa ku dhacay xanuunnada qofka uu la noolaado ayaa ku dhacay soonkiina ma awoodo. ama qof dhakhtar ah oo tabiib ah oo muslima oo lagu kalsoon yahay ayaa ka warramay qofkan xanuunkan inaanu ka bogsanahaynin. qofka noocaasoo kale isaga soonku waajib ku noqon maayo, qallana laguma laha, laakiin waxaa lagu leeyahay inay idcaam sameeyaan oo beddelkii soonka ay geliyaan inay maalin kasta oo ay soomi lahaayeen hal miskiin ay quudiyaan. waxaanu ku fasiray cabdullaahi ibnu cabbaas radiallaahu canhu aayadda qur-aanka wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin inay ka hadlayso qofkii gaboobay ee waayeelka ahaa inay ka hadlayso ayuu ku fasiray sida imaamu albukhaari raxmatullaahi calayhi uu ku soo saaray fii saxiixii uu ku soo saaray. qofka markaa booskii soonka muxuu gelinayaa inuu maalintii u afuray miskiin uu afuriyo.
haddaba sidee ayuu qofkaasi ku bixinayaa fidyada ku waajibtay waxaa su-aashaasi inooga jawaabaya sheekh casaam abu yaxya. miskiinka marka uu afurinayo siduu u afurinaya dhowr xaalaba way u bannaanta ilaa 3 xaalo ayaa u bannaan. xaaladda koowaad waxaa u bannaan in uu isku keeno matala hadduu 30 maalimoodba aanu soomi karin wuxuu isku keenayaa 30 qof ayuu isku keenayaa 30 qofuu hal maalin afuru samaynayaa cashaysiinayaa kadibna soonkiisii saasuu kaga dhacay. waxaa kaloo u bannaan halkii maalinba inuu qof afuriyo ayaa u bannaan. macnaheed maxay tahay 30 beri ayuu qof gurigiisa ku qoraya kadibna wuxuu samaynayaa qofkaasaa soo xaadiraya habeen kaste soo xaadiraya meeshuu ka cuntaynaya oo ka dhargaya kaasna wuu kaga filaan kartaa. waxaa kaloo iyadana u bannaan inuu qiimeeyo qof wixii ku filan hal maalin uu qiimeeyo. markuu markaa qiimeeyo lacagta uu isku geeyo intay noqotay oo lacaga haddii maslaxadu ay ugu jirto qofka miskiinka inuu ku wareejiyo yidhaahdo isku ilaali maxaa la yidhahdaa bisha ramadaan isku ilaali. laakiin shardi waxa u ah in qofkaasi uu yahay qof ay danta ugu jirto xagga lacagta ugu jirto. qadarka qofkan ku waajibaya ee la dhiibaya maxay tahay qadarka waxa weeyaan waa 1 mud 2 mudna culimada qaarkood way yidhaahdeen oo nisfu saacina culimada qaar baa ku tegey mudna qaar baa ku tegey. saacu wuxuu u dhigmaa 2 kiilo ilaa 75 garaam ayuu u dhigmaa. masaa-ishan oo faahfaahsan waxaad ku dhegaysan doontaan xalaqaadka ku baxa barnaamijka faafareebka wararka ee masaa'il min fiqhi soom ee uu jeedinayo sheekh casaam abu yaxya. waxaana xalaqaadka xiga ee warbixinadan ku dhegaysan doontaan masaa'il kale oo ku saabsan dadka cudurdaarada haysta ayaan awoodin inay la yimaadaan soonka.